ururka horumarinta iyo wacyigelinta dhalinyarada Garxajis ee badbaado oo qayb ka ahaa barnaamijka wacyigelinta gobolka Muqdisho ayaa kormeeray dhammaan goobaha ay ka socoto isdiiwaangelinta codbixiyayaashu. halkan waxaan kula wadaagaya haddii aan nahay ururka horumarinta dhalinyarada Garxajis oo isu hawlay sidii ay u wacyigelin lahaayeen deegaanadeena. waxaanu sameynay saaga report baan diyaarinay dhaatadii saakaanu soo qaadnay goobo badan baan soo marnay. goobtii ugu horeysay aan soo marnay wixii caqabadee ka jiray iyo wixii aanu kala kulannay ayaan qoraal ahaan ku soo gudbinaya. markii ugu horeysay waxaan focus ka saarnay oo socdaalkaygii ama kormeerkaygii aan ku bilownay waxa weeye waa xarunta degmada Gacalibaax. waxay ahayd 9:20 daqiiqo. dadkii way tubnaayeen, askartii way joogtay, laakiin shaqaalihii goobtu waxay noo sheegeen meesha ilaa saacadda wax registration oo ka socda inaanay jirin. markii aanu weydiinayna waxay noo sababeeyeen oo inay yidhaaheen waxaa dhacday xalig jaajarkii la gelinayay dabka ayaa inaan shaqaalaha ka mid ula maqan yahay. waanu ka nimi waxaa loo xigtay inuu soo boqonay xarunta ku taala kaalintayna galan ka soo horjeeda ee Son Power. iyadana waxaanu kala kulannay shaqadii oo taagan waxa weeye 10kii iyo barkii subaxnimo. waanu soo dhaqaaqnay waxaanu tagnay xarunta ku taala madrasada Al-Raxma la yiraahdo hudaalka Lake Victoria ka soo horjeeda. waana loo diiday inaanu galno, laakiin dadkii meesha taagnaa markii aanu weydiinay maxaa dhacay waxay yidhaaheen ilaa saacadda waanu taagannahay, hal qofna nalagama diiwaangelin. waxaanu ku xigsiinay xarunta Sheekh Yuusuf Al-Kawniin. waxaana lagu yidhi markii aanu dadkii waraysanay networkii baa maqan oo networkii ma shaqaynayo. saacadaha aanu soconaa waa 11:10 waxaanu tagnay Warancadde Secondary School. Warancadde waxaana lagu yidhi 5 saacadood ama 6 saacadood waxaa ka baxaya waxaan 10 qof ahay. saacadiiba hal qof ayaa loo shaqaynaya. wuxuu noo sheegay inankii soo istaagay 7 subaxnimo inuu 12 barkii duhurnimo taagnaa. waxaa kaloon soo maray goobta Warancadde ku taala iskooyska Warancadde ee xisbiga wadani ka dambaysa. waxaa kaloon soo maray qaybta ku taala Hodan Hills. intaaba caqabadaha ka taagan meel kaliya oo shaqaynaysay oo si habsamiyo u shaqaynaysay ma jirin. waxaanu nimi 3 xarumood ee Daami Branch 1 iyo Branch 2 iyo Branch 3. Branch 3 horta iyada gabigeeda albaabada u xidhnaa mabay shaqaynahayn. waxaa kaloo iyadana albaabada loo xidhay 11kii barkii subaxnimo xarunta New Hargeysa ee ku taala kaalintayna galan dhinaceeda Al-Raxma. 11kii barkii subaxnimo albaabada u xidhnaa. inamadii commissionerka markii aanu weydiinayna waxay noo sheegeen inaan shaqo jirin oo shaqadu ay taagan tahay. waxaa kaloo jira goobo fara badan oo Sheekh Nuur oo kale uu ka mid yahay. markaa sidii loo baahnaa saaka shaqada komishanka doorashooyinka diiwaangelinta socotay sidii loo baahnaa uma dhicin. waxaan leenahay 6 saacadood way naga lumeen annaga cidna iskama kala diiwaangelin. komishanka waxaan ku codsanaynaa in waqtiga saacadaha naga lumay in loogu daro oo loo keeno shaqaalaha. maraan booqnay degmooyinka xarumo ka mid ah degmooyinka sida degmada Maxamed Moogo oo kale inaynu ugu yiraahdeen dadkii goobta joogay dad komishanku uu la hadlay oo kaarar haysta ayaa goobta yimi. kaararkoodina way haystaan, iyagii baana kiyuugii ku jira. waxaanay leeyihiin komishankaana la soo hadlay. markaa anagu waan fahmi weynay qaabkaas waxay tahay. waxaan leeyahay dadkaa kaararka haysta ee kiyuuga ku jira ee dadkii kaarka ahaa ee kaarka qaadan lahaa waqtigii ka ridaya. waxaan leeyahay taana komishankaan doonayna noo macnayaana wax laga qabto. wabilaahi calayk. sibahan maanta waa ka sii darneedba ma arkinba wax gaariyo ka socsoonaya halkay mushir jeedan ku qabanay ee New Hargeysa. asaata urur ahaan anagoo tabaruc ku shaqaynayna waxaan diyaarinay gaadiid wacyigelin oo dadkeenii wacyigelinaya. qorshihii waan soo bandhignay 12 qodob. waxaan diyaarinay tiimanka tabliiqinta ee guryaha garaacay ee albaabta dadka saarayay. waxaan kaloo diyaarinay tiimamkii goobaha ku qornaanayay. goob kastayna baa ku qornaanaya. inankaasi waxa weeyaan isgaarsiin. goobta haddii dadku ay ku yaraadaan waxaana dadku ku yaraadeen markii laga soo jawaabaya dadkii waa la keenaya.
macluumaadkii goobtana si toos ah ayuu soo gudbinayay waxa kale oo diyaarnay gaadiidkii kormeerka ah ee goobaha marayay waxa kale oo diyaarnay system dadka marka kaarka qaataan si tiribka hore dhacday kaarka inta laga iibsado ayaa la kala jabinayay saas lagu riday taasoo ciidaas ay uga jeedo inaan codkeen muuqanin iyo cududeen toona marka anagoo dhibaatooyinkaas dhacay oo dhan ka warhaynay ayaanu abaabulka iyo wacyigelinta aan sameynay aan u diyaarnay dadkeenii iyo deegaanadeenii hase ahaatee waxa weeyaan dadkeeni waxay noqdeen dhegalaayo wax maqal ay noqdeen iminka systemka wacyigelinta anagu waan wadnaa waxa weeye 5 subaxnimo ayaa gabadha la staaraya tusaale ahaan maxamuud haybe maxamed mooge gacan libaax iyo macal haaruun maadaama xilli qabooba lagu jiro si dadkeen 6 subaxnimo waa u diyaar garoobaan oo aanay waayo minidkii kaaluma waxa weeyaan waa hal cod ku dhaafay caalamkuna hal cod baad waxa lagu kala badiyaa mid kasta dadkeen iyo la safafkii waad ka soo ma soconayaan midda kale waxa la keenay IT-ga waxa la nagu soo qoray inama yarro waxa weeyaan xarafka saacad qoriya saacad xarafku saacad qoriya marka waxaad malaynaysaa 2 saacadood qofka kaarka qaadanaya marka waxa weeye waqtiga soconaysa 4 cisho wacyigelintiina marka imka xisbiyadani mucaaradkii taa dadkeena aan wacyigelino waxa koonay ardaydiiba ayaa hawsha u xil saaran oo wacyigelinta ardayda wada ardaydii xildhibaanada toona ma hayno koonfurta bariga Hargeysa ilaa xalay ma soconnaa wax xildhibaano soconaya ma hayno waxa xisbiyo soconaya ma hayno cid kale oo ka danqanaysa soconaysa ma hayno waxaanu u soconnaa waa hawl guud hawl qaran weeyaan xilliga waxaan u taaganay saacada waa casr baleedaamaya maanu qadayn waxaan u taaganay mana doonayno waxaan u taaganay waxa weeyaan halgan iyo dan guud salaada suxuur soo kacnay guud ahaantiin waxaanu leenahay halgan ka wada dadka guriga ku jirana waxaan leenahay ka soo kaca ilaa islaama guriga jiifa aynu soo saarno waxaan leeyahay anoo xildhibaano musharax dawladda diidanta in aad taariikhda qaadataan bulshay baaq dheer ayaan u dirayaa waxaan maanta arday dhalinyaro iyadu sideed iyo daar ahaan isu xilqaantay oo iyadu inay dadka wacyigeliso oo ay taariikhda tiraahdaa qaata waxaan idin sheegayaa dadweynaha reer Somaliland in dhammaantood wixii sharafteena maanta inay ayadu ay sidooda u dartaanoo nin jiifa iyo nin maanta caafimaad qaba ay taariikhda qaataan ayaan baaq u dirayaa dheer iyo dibadba in ay ururta taageerto badbaado